إلها كم عصن أنت عن ماشي سقوط مدي وإن كوبا لكن وحال الله تلقى لتلقى إني باللابان تلقى معلم والبعيدة باللاب لهاد دت كان النقدان دت السوق الرئي shirka siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda hanaanka maamul ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho kaas oo maalmihii la soo dhaafay qaban qaabadiisu ay socotay shirkan oo ah mid muhiim ah ayaa waxa ay sheegeen in siyaasiyiinta mucaaradku ay diiradda ku saarayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga iyo qodobo kale madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaarayaal hore gudoomiyaal hore oo baarlamaanka iyo siyaasiyiin xilal kala duwan dawladda federaalka uga soo qabtay ayaa qayb ka ah shirkan waxaana kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Roble Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isna gudoomiye baarlamaan soo noqday ayaa sidoo kale shirkan qayb ka ah maanta waxaa shirka ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka kuwaas oo iyaguna ah xildhibaano markaasi dhalisan hanaanka maamul ee dawladda Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ugu horeyn shirka furay waxa uu ka hadlay qodobada hortubinta leh ee ay diiradda ku saarayaan shirkooda maanta sidaas darteed ayaan waxaan isugu nimiday inaan falanqeyno ajandooyinka la sheegay ay ka mid yihiin hanaanka dalku u socdo meesha loo jeedo si lagu gaari karo xaaladaha adaga la wajahay taasi kuma imaan karto gruub kooban qof koox kuma koobnaa karto waa arrin qof kastoo waxgarada oo Soomaaliya laga rabo rag iyo haweenba gudaha ha joogo dibadda ha joogo maxaa yeelay waxa ku xiran mustaqbalkeena dhamaantiisa ku xiran waa mas'uuliyadeena فلله الحمد إله أكون عصن أنت عن ماشي سقوط مدي وإن كوبا لكن وحال الله تلقى لتلقى إني باللابان تلقى معلم والبعيدة باللاب لها دت كان النقدان دت السوق الرئي تلقى مدرر سوجي تميسي ما أنت السوق مدي الله أكون عصن سبحانه وتعالى فعن رواينا أمهات عليه هوتيل كان أخيارتي إسكالهاد oo runtii mar walba dadka noo furi jirta marka xaaladdu adkaato inaan aad iyo aad uga mahad celiyo runtii fursadda ay noo siiyeen inaan isugu nimaado halkaan ku shirno tala Soomaaliyeed ku falanqeyno aad iyo aad ugu mahadsan yihiin sidaas si lamida waxaan rabaa inaan mahad celiyo wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada ee habeen maalin u soo taagan dareenka shacabka inay gudbiyaan waxaan aad iyo aad uga xumahay cadiyada ay la kulmaan dawladda ay rabeen inay ku diirsadaan ويدفاعوا شرف كوضة إنه معلوم والبكوت عادنيس. مدرسة واحد سيدو كلا كهالي قار كم ده حلبان هذا لبضع أقل برلمان كفدرالك ويجونا كهالي حالة التاجن السياسية الدلكة. دور الشلة وجوه ريقور في عد لكن قري عاردي ليس كود ديوان قلنايو ما ملو حلل كودي دماغي أو إسكتشوجا دستور الله هنتدي مجورت ده هيد أو جورتي حق رشاد عيدا كحوج الدلكة qorshe la'aanta dagaalka khawaarijta heshiisyo qarsoodi ah oo suuq madow lagu soo galay kalluunkii oo la xaalufiyay shidaalkii oo cid gaar ah loo xiray ciidankii qalbiga ay ka dhinteen difaacidii ay ka soo wada baxeen waad aragtiin maanta meesha aan taaganahay 2,000 oo ciidamo ah oo inta ka soo jabay aadan yabaal ilaa guurceel lugayna ciidan ma qaxo ee dib u gurasho sameeyaan ciidan qaxaayo waxaa noogu horeysay madaxweyne xasan sheekh xaqiiqatan waa nasiib darro weyn waxa maanta waddankeena ka jiro dhulka ma dahno waa la gaday si sharci laguma gadin waxaan maraynaa heer la yiraahdo laba dawlad goboleed oo dawladda federaalka Soomaaliya xubno ka ahaa in la yiraahdo iska maqnaadeen loo joojin maayo waxaan ka xumahay mar labaad baarlamaankii 11aad oo aan anagu qaybta ka nahay inuu isagoo waxaas og ولا وراقنا حكومة دي فلنتي وهجامري مدحوين حسن شيخ مركب حنا رجينا إن واحد صار إنت لقى صار لابطه حقيقة قلت له صار لابطه أنت سكت بوحان ورئيسني حبنا يسوق جرة رئيس الوزراء الهراء قدوميال الهراء البرلمان يسياسيين كسوقيب قلي شركة يحلبانا كتيرسن لبضع قلي البرلمان كفدرال كا ما أنت يشركة نوبل الأوضي ما أنت هذا مهر دعي كري نحلق هذا أجنداش نقرنا maantay iyo berri
waxaa dhinaca socda casuumadihii iyo ra'i dhageysigii aan u fidinaynay qaybaha kala duwan ee bulshada jimcadana waa soo gabagabaynaynaa hadduu alla idmo maxaa laga filayaa marka waxaa laga filayaa wax muhiima oo dalka lagu badbaadinayo aragti muhiima oo dalka lagu badbaadinayo in ay Soomaaliya u baahan tahay wada tashi is-ogol iyo horsocod wax badan ayaad kala socotaa saameynta khilaafka doorashooyinka ka dhasha maxaa xal u ah Soomaaliya wada hadal iyo in la isdhageysto sababtoo dadka halkaan fadhiya waa dad khabiir ku ah arrimahaasi xilligii doorashooyinka khilaafka uu ka dhashayna ka mid ahaa dadkii xalka keenay marka waxaan aaminsanahay sidii xilligaas loo dhageystay ayagana inay hadda wax dhageystaan xasan xilligaas waa la dhageystay Soomaa wuxuu wax ku noqday waxay ahayd dadkan oo wada socdo oo wax la wada saxayo markaasi doorashada loo arkay doorasho heshiis lagu yahay in la galo markii dambena waa lagu guuleystay in lagu gudbo mushkiladii jiray oo la doorto madaxweyne heedii dawladda dib loo doorto marka waxay la tahay sidii xilligaas asaga loo dhageystay hadda dadka u dhageysto madaxweynaha tan oo kale asaab macalinka ah hore u soo maray mar haddii halkan gaartay in wax ka qaadanaan aaminsanahay waan ka wuu ka qaadi doonaa madaxweynaha wadin tala diida ma aha taladana maanta waa u jeedaa intii jirtay waqtiga jiro oo dhan qof la haysata ma jirin laakiin hadda waqtigan waa soo dhawaaday in maanta maamuladii ay kala maqan yihiin horeyna Soomaaliland u maqneed laba kalena hadda ay maqan tahay saddexda kale hadda joogtana saddex oo sharciyad ku fadhida aysan ahayn madaxweynuhu meel hadda wax ka dhihi doono ma leh way aragnimo badan baan hadda haysanaa waxaan aaminsanahay inaan ka taxadari doono haddii alla yidhaah iyaga laftarkooduna ay way aragayeen oo ninkii khalad gala aan laga yeelayn ogyiin meesha lagu soo celinayo waa ka dambeyn marka maxaad soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed gacmaha is qabsado ciidamada qaranka la isgarab taago maxaan ku idhaahdaa dawladnimada inay dastuur ku shaqeysaa laga shaqeeyo haddii nin waliba waxa uu shaaduu xasan sheekh iminka bedesho dastuurka waxa uu rabo u bedesho ka dambeeyana sidoo rabo u bedesho waxay noqonaysaa meel lagu kala tagay shirkan ayaa la filayaa in muddo 3 cisho oo halkan ka socdo isla markaana lagu falanqeeyo qodobadii hore aan kugu soo sheegay ee arrimaha amniga doorashooyinka iyo xaaladda guud ee waddanka ay ka mid yihiin maxamed idle Universal TV muqdisho